barakacayaasha xaafadda bariga Jimcaale ee wadada 200 ee magaalada Hargeysa ayaa xilligan dhibaato aad u weyn ay ka soo wajahday dhinaca roobabka guga ee dhawaan ka curtay dalka iyadoo dadkani marka hore raashin la'aan biyo la'aan iyo hoy la'aaniba ay haysay ayaa haatan waxa culays aad u weyn ku haya roobabka maadaama ay yihiin dad hoy la'aan ah waxa ay roobabka iyo dabayluhu ay ku garaacaan buulasha yaryar ee ay ku jiraan dadkan barakacayaasha ee halkaasi degan ayaa waxa kamid ah qaar indho la'aan ah qaar curyaamin ah qaar dhinaca maskaxda wax ka qaba caruur dumar iyo waayeel intaba waxaana xukuumadda Somaliland iyo dadka samafalka jecel ka codsadeen in dhibaatada haysa laga caawiyo isla markaana loo fidiyo gargaar bini'aadanimo dadka curyaaminta iyo indhaala ee raxmadaasi halka ku hayso waxaanu ka codsanaynaa de wax la cuno iyo wax la huwadiyo wax la galaba waan doonaynaa dawladuna wayna agmar maraysa wax indhalay leeyahay wax riyaanay leeyahay wax xanuunsanayay leeyahay maskaxda bay leeyahay dhibaato badan de kale waan dareemayaa qof indhala oo dalxadla oo birala oo bilaabara ah oo maxay haytay roob iyo dhaxan iyo dhibaato ba haysabaan baaqan u dirayna waxa weeyaan dad dhibaataysan baanu nahay sidii ay wax noogu qaban lahaayeen amba waxaanu huwana ahaato amba waxaanu cunaha ahaato amba meelanu tagnaba ha ahaato 8 sanadood baan soo baabaynay haddana soo baabaynay kabaradan banaan ee cidlada ah ee roobabku iyo nagu qabteen wax la leeyahay waxaanu haysanaa ma jirto wax noogu daro waxa jirta hooyaanu gallo waxa roob daaya wayna helaan beeranu ka galab bulasha arbacaan noo dhisan wuxuu waxba nooga celiyaan caruuraha yaryar aragtaan baanu haysanaa caruurahaas way dardaadan anagu waan isla dardanaa 8 sano baabaynay buura xaggaasanu deganeen haddaanu deganeen dhul bilaadan bay ahayd ka kacaalayay markii ka kacanay meel banaan ayaanu sida u ooleyn ilaa tan iyo bishii 12aad bishii koobaad baan halkan nimid dawladda sharafta leh ee Muuse Biixi Cabdi waxaanu ku codsanaynaa wadadan 200 aanu naalaa waxaanu ku codsanaynaa dawladda sharafta leh roobkaan helay dhaxan baana dishay hooy waanu u baahanahay dawladda sharafta leh waa inay hoos noo eegto oo guryahanti inay noo dhisto oo dhul ah waxaanu buulal iyaanu ku jiraa buulashu waa karbaashyo bacamalihin cuntaan cunniyo biyo toona ma helo annagoo dadka tan yartaa ay arkaysaan kana soo guurin kaamka la yiraahdo Naasa Hablood ugana soo guuray nabadgeliyo darro iyo maqaal xumo imikana ku nool wadadan 200 ee magaalada Jimcaale ka xigta galbeedkeeda waxaan dawladda sharafta ka codsanaynaa iyo dadkayga in dheer garatada aba in aanu halka roobku nagu helo dhibaato badan nagu hayso dadkoodii ma aha dad meel kale ka yimo laajiya waa dad mawaadin waa dadkii magaalada ka codeeyay in badan 8 sano aanu halka ku darxumaysnayn mana maxaan ku dhahaayay maamul xumo iyo nidaam xumo meesha kaamka Naasa Hablood waa nuga soo guuray in badan baanu dhibaatada qabnay alxamdulillah al shukri maanta deeylay maada ka gaadhay dhibaato kuma qabno meesha laakiin maada ka gaadhay laakiin dadkaas waa dad jilicsan ee dawladdu hoos u eegto dadkana waa dad in badan soo socday in badan soo dhibaataysna in badan waanu toban sanadood baanu joognay dhulka inta dib un baanu qabnay midna wax nama tarin laakiin dadku waa dad aad liita waxa ku jira curyaamin baa ku jirta maxaan ku dhahaayay marka banaanka ay fadhiisanayaan duruuftii baa ku kalifaysa inay haddana ka dhaansadaan maadaama aan wax u dhowo meel u dhowo ay ka soo dhaansanayaan aanay jirin ومولد محمد سعيد سم نيوز TV Hargeysa